السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka ahaa oo alaabaan uga hadli jirnay xaaladda caafimaad ee dhibana Maxamed Soomaali isla markaasina aynu ku soo bandhigi jirnay xisaabaha walaalaha Soomaaliyeed ay ku soo sadaqaystaan dhibana Maxamed Soomaali sidaad ka waraysaan Maxamed Soomaali wali waxa uu ku jiraa isbitaalka Tawakkal ee Malaysia waxaana lagu guda jiraa in la baxnaaniyo caafimaadkiisa wuxuuna maray qaliinkii koowaad waxaana u dhiman qaliinkii labaad ee lugta lagu toosi lahaa daawadayaal Maxamed Soomaali ummadda Soomaaliyeed ayuu ugu jiraa isbitaalka waxaanu idinka codsanaynaa in caafimaadkiisa aan qayb weyn ka qaadano si mar aan u soo gabangabeeno xaaladda caafimaad ee dhibana Maxamed Soomaali walaalaha Soomaaliyeed ee wax ku soo sadaqaystay Maxamed Soomaali waxa aanu mar walba uga mahadcelinaynaa sida walaaltinimada leh bini'aadanimada islaamnimada iyo Soomaalinimada ku jirto ay ugu soo damqadeen walaalkood dhiban Maxamed Soomaali mar walba waxaan marqaati ka ahay sida aabe Axmed Jeelaani iyo dhibana Maxamed Soomaali oo ah wiilka uu dhalay Axmed Jeelaani ay idinkugu soo duceeyaan isla markaasina ay mar walba idinkaga mahadceliyaan sidaad u garab taagantihiin marqaati ayaan ka ahay waxaan rajeynayaa insha Allah taala qof walba oo niyada iyo afkaba ka taageeray Maxamed Soomaali in faraj khayr qabo Ilaahay u furi doono daawadayaal waxaan rabaa hadduu alla idmin idin soo bandhigo xisaabaadka walaalaha Soomaaliyeed ay u soo direen Maxamed Soomaali shalay iyo maanta waxaan rabaa inaan ku hormaro hadduu alla idmo xawaalada dahabshiil ee Malaysia waa tahay walaalka Soomaaliyeed ee ku soo sadaqaysta lacagtan Maxamed Soomaali magaciisa waa Muna Cabdullaahi waxa ay ku nooshahay Saudi Arabia waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $250 walaalka kale xiga waa Maxamed Cabduqaadir Amiin waxa uu ku nool yahay UK wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $50 walaalka kale xiga waxa uu noqonayaa waa Usmaan Yusuf waxa uu ku nool yahay USA ama Mareykanka wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay lacag dhan $403 qofka kale xiga ee Maxamed Soomaali lacagta ku soo sadaqaystay hadduu alla idmo waxa uu noqonayaa Faadumo Xasan Faarax waa Faadumo Xasan Faarax waxa ay ku nooshahay Finland waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 qofka kale xiga waxa uu noqonayaa daawadayaal hadduu Allah awood leh raalli uu ka noqdo Fardowsa Aadan Waasuge waa Fardowsa Aadan Waasuge waxa ay ku nooshahay Mareykanka waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $240 waa $240 sidoo kale waxa jira walaal Soomaaliyeed oo ku nool Norway oo Maxamed Soomaali u soo diray $200 balse naga codsaday in aynu magaciisa sheegin walaalkaas waxaan leenahay waan helnay lacagtii aad u soo dirtay Maxamed Soomaali aabe Axmed Jeelaanina waa uu helay sida aad haddaba insha Allah taala aad ka wada dheehan doontaan Axmed Jeelaani bal walaalaha Soomaaliyeed ee lacagaha u soo diray dhibane Maxamed Soomaali wiilkaaga maxaad ugu duceey lahayd بسم الله جزاك الله والله وحان لا إله إذن بركيو إله إذن كفرحيو استاذ ونوق فرحسين سيقدرنا الله إذن كفرحيو قف والبو محمد كسو صدق يستي أو مارتي قعنتي سوسو قارسي إله وحان وبرينا مرات والبوليه إنو إله مرات كسو سالو انتي مسلم دواتي سن إله ونو دبك قادو إن شاء الله مر والبو إذن سود عينينا إذن كان الله إذن أنفعو الله إذن بركيو وحاد سو صدق يستي جزاك الله خير waa tahay walaalaha Soomaaliyeed Maxamed Soomaali lacagaha u soo diray way mahadsan yihiin Allahana idin aqbalo ducada aabe Axmed Jeelaani xawaalada Amal Express walaalaha lacagaha ku soo diray waa Iisho Maxamed Cabdullaahi waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 waxa ayna ku nooshahay Sharjah Dubai waa Dubai ay ku nooshahay waa sida ku qoran boonada aan ka soo qaadna xawaalada sidoo kale qofka kale xiga waa Maxamed Cali Maalin waxa uu ku nool yahay Denmark wuxuu Maxamed Soomaali ku soo sadaqaystay $30 qofka kale xiga waa Qadra Bashiir Xuseen waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $216 waxa ayna ku nooshahay Australia ay walaalaha Soomaaliyeed maxaa ugu duceey lahayd جزاك الله والله وحان لا الله يدين بركيو إلهي إذا كان أجري حسنات الله يدين كسيو انتي نسو عاوسي انتي نودعيسو بإلهي وحان كبرينا إذا كان
waxaad ku faraxdaan inuu ilaahay idin siiyo insha allah qof walba muraad uu leeyahay waxaan ilaahay ugu sii baryaynaa muraadka aad leediin inuu ilaahay muraadkiin taam idinka dhigo inuu ilaahay maaragtay idinka farxiyo sidaad anaga noo farxiseen mar walbana waa idin soo duceynaynaa insha allah ilaahay idinkiisa ilaahayna waxaan idinka baryaynaa qof walbo oo dan leeyahay inuu ilaahay dantiisa u oofiyo insha allah jazaakallah waa tahay walaalaha soomaaliyeed ee xawaalada taaj lacagaha kusoo diray ayaanu haddana gudagelaynaa hadduu alla idmo qofka ugu horeeya waa sahre xaaji maxamed waxa ay ku nooshahay sacuudi arabiya waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $100 qofka kaloo xiga waa ubax cilmi xuseen waxa ay ku nooshahay sweden waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $50 qofka kaloo xiga waa naja saleymaan muuse waa qofkan magaciisa waa la soo gaabiyey waa ina saleymaan muuse waxa uu ku nool yahay qofkani masar wuxuu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay $100 sidoo kale xawaalada iftin express walaalaha lacagaha kusoo diray qofka ugu horeeya waa mawlid bashiir axmed waxuu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay $811 waxa uuna ku nool yahay dabcan wadanka uu ku nool yahay lama cadaynin laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno lambarkiisa sidaan jeclahay waa mareykanka lambarkuna wuxuu ka bilaabanayaa plus 15 21 30 51 81 hal waa 15 21 30 51 811 qofkan wuxuu ku nool yahay sidaan jeclahay mareykanka qofka kaloo xiga waa Suleymaan Yuusuf Absuge sidoo kale qofkan waxa uu ku nool yahay wadankiisa lama soo qorin xawaaladu ma aysan soo qorin laakiin magaciisa waa Suleymaan lambarka ku qoran ee xawaalada aan ka soo qaadnay waa 46 73 55 29 85 qofka lambarkaas wata ayaa lacagtan soo diray waa Suleymaan Yuusuf Absuge wadanka uu ku nool yahay dabcan lama sheegin laakiin waa Yurub waana 46 73 55 29 85 wuxuuna maxamed soomaali kusoo sadaqaystay $100 waa Suleymaan Yuusuf oo $100 kusoo sadaqaystay maxamed soomaali iyo mawlid bashiir axmed oo $811 kusoo sadaqaystay maxamed soomaali balse wadamada ay joogaan lama soo qorin lambaradooda ay taleefanka gacanta ayaan loo soo qoray si marka lambarada aan u sheegno waxay cadeynaysaa lambarada aan sheegayno in qofka reference ahaan uu sii ogaan karo lacagta inuu asaga soo diray meeshuu ka soo diray iyo siduu yahay waxaan rabnaa in wax walba aan cadeyno hadduu alla idmo marka naga raali ahaada haddii xawaaladu ay macnaa lagu soo qori waayo qofka meeshuu joogo exactly waxaan ku qasbanaa inaan sheegno lambarkiisa marka walaalahan Soomaaliyeed ee xawaalada Taaj ee iftin lacagaha ku soo diray maxaad ugu ducey lahayd Axmed jazaakallah walaalay waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo ilaahay idinka ajri xasanaad Allah idinka siiyo intii ka soo qayb qaadatay intii u soo duceysay ilaahay waxaan idinka baryaynaa in muraadkiina idinka leedin ilaahay taam idinka dhigo qof walba wuxuu ku farxo inuu ilaahay u sahlo insha Allah waana farxi doontiin maxaa yeelay wiilkii oo dhiban muddo intaas oo san dhibaateysna ayaad soo caawiseen ayaad u soo ooyseen ayaad u duceyseen marka insha Allah walaalahay mar walba waxaan idin leeyahay jazaakallah ilaahay idin barakeeyo ilaahay ubadka noo dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa maxamed oo lugiis ku socdo insha Allah inuu ilaahay na tusiyo insha Allah waa idin soo duceynaa waa tahay allaha idin aqbalo ducada aabe Axmed Jeelaani oo ah aabaha dhalay dhibane Maxamed Axmed Jeelaani Maxamed Nuur oo loo yaqaano Maxamed Soomaali daawadayaal sidoo kale waxaan rabaa inaan idin soo bandhigo hadduu alla idmo oo aan la iloobi karin kaalin weynna ka qaatay isla markaasina aan u mahad celinayno juhdigooda walaalo isxilqaamay oo ku nool Malaysia waa walaalo isxilqaamay oo ku nool Malaysia isla markaasina degan xaafad lagu magacaabo Idmaan Sutra waa xaafadda Idmaan Sutra waa walaalo degan oo isxilqaamay kana damqaday dhibka Maxamed Soomaali walaalahaas waxay soo wakiisheen gabar lagu magacaabo Sahro Maxamed Cabdulle waa Sahro Maxamed Cabdulle ay soo wakiisheen waxa ayna Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysteen lacag dhan 200 waxa lacag dhan waa 2400 oo ringgit
waa lacag dhan 2,400 oo ringgit una dhiganta $550 waa lacag u dhiganta $550 ringgit-ka ama lacagta Malaysia marka loo bedelana waa 2,400 oo ringgit Sahro Maxamed Cabdulle ayaa walaalaha soo wakiisheen dabcan salaan qaas ah ayaan hawada u soo marinaynaa Aabe Axmed Jeelaan waxaan ka codsanaynaa maadaama ay yihiin groupkii ugu horeeyay oo lacag intaan la eg soo gaarsiiya Aabe Axmed Jeelaani isla markaasina ka damqada dhibkiisa ama dhibka wiilkiisa inuu duco qaas ah ugu duceeyo Ilaahay inuu faraj khayr qabo ayakan u furo kale oo Soomaaliyeed ee Malaysia ku nool waxaan ka codsanaynaa in ay iyakuna qayb ka qaataan sadaqada walaalkooda ama dhibane Maxamed Soomaali maxaad ugu duceeyleed walaalaha Soomaaliyeed ee dhibkaaga ka damqaday جزاك الله والله وحن لا مليزي وسجن يقول نول إلهي هذه بركايو قاسة السهرو يوحي كسوق بقاتي أو يعني أونلاين تاسومارتي كجرب قاتي إلهي وحني كبرينا هذه كان جزاك الله وحد كفر حدين الله هذه سهلو هدو أرضي هاي هدو شخصي هاي إلهي قفل بحن لا مراد كالذين أما دنت إلهي كسوجيسان إنه إلهي إذن فوضى إن شاء الله وهذه سود عيننا ولا له بقولك وبقول آد يا دادو ما سنتين وهذني كفر حسين حداتين إير ماليزيا إن شاء الله مرور بندعونا إن سوهانينا أرضي قف والبو أولن قف والبو يعني وما توجو ودن كان مراد سوقه إلهي وحاني كبرين وإلهي مراد كنتام إذن كديو إن شاء الله وأن يسود عيننا ويلكين وإذن سود عين دمان إنتي مسلم صوماليا دا كسوق قادة محمد عاونا ديسا أم بحنان تيسا إلهي وحاني كبري هذه كان ميلاد كفلن وإلهي دين كسي إن شاء الله مرور بن وإذن سود عيننا جزاك الله وتهي هذا ما سنتهي أبا أحمد جيلاني ولا لا صوماليين إن شاء الله تعالى وحن أرجينا يا إن دعاء أبا أحمد جيلاني وإلهي وأقبله داود يال قيبتي كلا أنت سينو كسو جبيننا أنت إنه برامج كانوا كلا دبها وكل مدونه وأنا يا أبا أحمد جيلاني وإذن كتجينا سداس إنه بدقليه